السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كمركل السود وهذا أدي هذا ومهندسين ما أنتوا أربعة وأنا تضبي لبعتن كبيش السديدات أغسطس سنة كلابا كون يشان يلا بعتن مقال كان وحنا ربعنا إن كل وذا قط توقش وذرات ساكا كذا عدي سكول كنيسة كل حياله دعا كوفرتها مقالة مينيابوليس تليها بوليس كمينيابوليس برين أوهير أيا وحا وشيء إن ساكا أنت أن لجارين لبسطة يا برس بحنمو iyadoo waliba Minneapolis aan ognahay Minnesota in toddobaadkii koobaad ee iskuulada dib loo furayay lagu jiro in kaniisad la yiraahdo Annunciation Roman Catholic Church oo ku taala koonfurta magaalada Minneapolis isla markaana iskuul uu ku dhex yaalo ardayda sida caadada ah maalin kasta oo arbacaha gudaha kaniisadda ay ku duceystaan in nin 20 jir ah uu rasaas ku bilaabay waliba isagoo banaanka kaniisadda ka soo tooganayay oo daaqadaha miraayadooda xabadda soo dhex marinayay halkaas waxa ku geeriyooday laba arday oo da'doodu ay kala tahay 8 sano iyo waliba 10 sano 10 iyo 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen oo 4 iyo 10 kamida ay caruur yihiin laba kamidana waxa uu sheegay in xaaladoodu ay halis tahay isla markiiba boolisku waa ay soo gurmadeen gudaha kaniisadda ayayna galeen waxayna bilaabeen in gargaar caafimaad ay u fidiyaan dadkii dhaawac ahaa isbitaallo kala duwan ayaa la geeyay waxana uu sheegay in ninkii toogashadaasi geystay oo ah nin 20 jir ah magaciisana wali aan la shaacinin isla markaana ay muuqanayso in wax horay dambiyaha uusan u soo gelin in qaybta dambe ee kaniisadda uu markii dambe isku dilay waxa uu sheegay in gaarigiisii uu baakinka uga tagay waxyaabo qarxana laga helay ilaa iyo haddana la baarayo waxa la weydiiyay taliyaha booliska ma jiraan wax waraho sheegaya in gudaha kaniisadda amaba iskuulka uu galay oo halkaasi rasaasta ka riday wuxuu yiri ma u malaynayno inuu gudaha galay banaanka ayuu toogashada ka geysanayo daaqadaha ayuu ka tooganayay dad fara badan oo iyagu koobtaasi ku sugnaa oo duceysanayay ma ahna ardayda oo kaliya ayaa joogay marka maadaama 14 dadka dhaawaca ah marka 17 laga jaro waxa sidoo kale soo haraysa 3 qof oo kale saddexdaasi qof inay dad qaangaara yihiin ayaa loo malaynayaa walow taliyaha booliska uusan sheegin ilaa iyo 1923 sida caadada ah marka la gaaro 2 saac iyo 15 daqiiqo iskuulkaasi kaniisadda ku dhex yaala waxa jirta in maalin kasta oo arbacaha la duceysto waxa jirta shalay galinkii dambe in ay toogasho kale ka dhacday iskuul high school oo dugsi sare ah oo isaguna Christian ama Catholic ah oo ku dhex yaala kaniisad hal qof ayaana dhintay 6 kalena waa ay dhaawacmeen qofkii toogashadaasi geystayna waa uu baxsaday ilaa ay hadda lama soo qaban marka Mareykanka caadiyan toogashooyinkan iskuulada waa ay ka dhacaan iyo meelaha dadku isugu yimaadaan marka waa kan taliyaha booliska Brian O'Hare oo ka warbixinayay sidii ay saaka wax uga dhaceen iskuulkaasi kaniisadda ku dhex yaala. Earlier today, just before 8:30 a.m., our city experienced an unthinkable tragedy. Minneapolis police officers responded to a report of a shooting at a mass that was happening at the Annunciation Roman Catholic Church on the block behind me. This worship service was marking the first week of school for children that are attending the Annunciation Catholic School. During the Mass, a gunman approached on the outside on the side of the building and began firing a rifle through the church windows towards the children sitting in the pews at the Mass. Shooting through the windows, he struck children and worshipers that were inside the building. The shooter was armed with a rifle, a shotgun, and a pistol. This was a deliberate act of violence against innocent children and other people worshiping. The sheer cruelty and cowardice of firing into a church full of children is absolutely incomprehensible. Police officers from the Minneapolis Police Department immediately responded, entered the church, and attempted to provide first aid and rescue some of the children that were hiding throughout the building, while other first responders came and EMS responded to rush victims to nearby hospitals. 2 young children, ages 8 and 10, were killed where they sat in the pews. Their parents have been notified. 17 other people were injured, 14 of them being children. 2 of those children are in critical condition.
The coward who fired these shots ultimately took his own life in the rear of the church. taliyaha booliska waxa uu intaasi ku daray in qofkan toogashada geystay oo 20 jirka ah aan la ogeyn inuu iskuulka horey u dhigan jiray amaba uu hadda dhiganayay waxana uu sheegay in baaritaankaasi weli socdo oo waxyaabaha ka soo kordha la ogaan doono ilaa hadda qofkaasi 20 jirka ah oo toogashada geystay magaciisa lama shaacin iyadana waa la sugaya Mareykanka caado ayay ka noqdeen in toogashooyin ay ka dhacaan iskuulada kaniisadaha iyo sidoo kale meelaha ay dadku ay isugu yimaadaan ama dukaamada waaweyn ah marka labahada la qeexo waa maxay toogasho wadareed National Gun Archives waxa ay leeyihiin toogasho wadareed waxa loo yaqaanaa meel ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen dad ka badan 4 qof amaba 1 ilaa iyo 4 qof inta u dhaxayso marka laga reebo qofka dhibaatada geystay sidaasi ay ku qeexaan toogasho wadareed hadda sanadkan bishii 8aad ayaa sii dhamaanaysa Mareykanka waxa ka dhacday sanadkan 2025 waxay toogashadan maanta Minneapolis ka dhacday ay noqonaysaa tii 286 oo toogasho ilaa iyo bishii January laga soo bilaabo sanadkan 2025 sanadkii 2024 waxa dhacay toogashooyin gaaraya ilaa iyo 369 toogasho markii la joogay Agosto 27keedii oo bishii 8aad xilligan maanta oo kale waxa Mareykan ka dhacday sanadkii hore 369 toogasho marka aan dib u eegno sanadihii la soo dhaafay hadda 24kii guud ahaan marka sanadkii 2024 la isku darana 503 toogasho ayaa Mareykan ka dhacday sidaan idin sheegay toogasho wadareedna waxa loo yaqaanaa meel ay ku dhinteen 4 qof amaba ka badan meel ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen ayaa toogasho wadareed loo yaqaanaa marka 503 toogasho wadareed ayaa Mareykan ka dhacday sanadkii 2024 sanadkii 2023 waxa dhacday 660 toogasho wadareed sanadkii 2022 waxa dhacday 644 toogasho wadareed sanadkii 2021 689 toogasho wadareed ayaa Mareykan ka dhacday marka Mareykanka waa ay fududahay qofku inuu qori soo iibsado qofku marka 18 sano uu gaaro qoryahan automatic u dhaca sida AK47 iyo qoryahaasi qofku waa uu iibsan karaa marka qof dhalinyarada waxa laga yaabaa in iskuulka dhalinyaro kale ay bullying ku sameyn jireen ama ay ku caan jireen marka uu 18 sano gaaro waxa laga yaabaa inuu intuu iska xanaaqsan yahay oo qori iska soo iibsado argos ahaan iskuulka u galo wayna dhacdaa inta badan oo marar badan ayay dhacday marka waxaad u malaysaa in hadda marka la barbar dhigo sanadihii la soo dhaafay sanadkan hadda 2025 ay ka yar yihiin toogasho wadareedyada Mareykanka ka dhacayay marka la barbar dhigo sanadihii 4 ahaa ee la soo dhaafay weli sanadka hadda 4 bilood ay ka harsan tahay oo aan la ogeyn 4taasi bilood waxyaabaha dhici kara aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta waxyaabaha kale ee soo kordha hadii alla idmo waa idila soo socodsiin doonaa intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo